timeline and tagging waa Facebook training ama casharadii ku saabsanaa Facebook waxaan qaadan doonaa cashirkanan ciwaankiisa aan ugu magac daray timeline and tagging oo ah timeline-ka qofka uu leeyahay iyo tagging-ka oo ah sumadii sidee isaga joojin karaa waxyaabaha igu soo taagalayo sida video anshax xumo ah sawirro ama qoraallo waxaan aragnay dad fara badan oo ka cabanayo barnaamijka lagu magacaabo tagging-ka wuxuu la macno yahay post iyo sharing ama in lasoo sameeyo like tusaale qof baa wuxuu kugu soo taagareeyay video aad u xun ama sawirro qaaqaawan naked ah ayuu qof kugu soo taagareeyay marka asxaabtaadii iyo friendskaaga waxa macquul ah inay kusoo dhahaan war waxaan aad soo dhigtay Facebook maxay yihiin war ma waalatay meeshaas asxaabtaadii ay si kale ku fahmaan marka Facebookii ayaa noo furan tagging-ka Facebook ma weysi inay joojiso tagging laakiin waxay ku siisay awood ah in aad tagging-ka aad xadidi kartid oo asxaabtaada aysan u gudbin haddii wax lagu soo taagareeyo marka tagging-kaas ayaan baran doonaa insha Allahu tacaala sida caadadu ahayd waxaan tegi doonaa falaartaas hoos u soo jeedo falaartaas markaan furno waxaan kasii dooran doonaa setting oo ah habeeyaha setting-ka markaad tagtid waxaa kusoo furantay qaanadan aad u jeedid qaanadan waxaad kasii dooran doontaa timeline and tagging setting markaad doorato waxaa kusoo baxday windowgan ama qaanadan aadka u wanaagsan qaanadan waxay ka kooban tahay dhowr qaybood laakiin qaybaha ugu muhiimsan ee quseeyo tagging-ka ayaan tegi doonaa waxa ugu horeeyo who can add things to my timeline-kayga yaa wax kusoo dari karo timeline-ka adigu aad leedahay yaa wax kusoo dari karo waxaa soo post gareyn karo ama soo share gareyn karo adiga oo keliya friendska haddaad dhahdi meeshaan friendskayga waxaa kusoo daraan postiga awood u yeelan doontid inaad iska xadidid dadka wax kusoo taagarayo edit baa dhihi doontaa edit markaad dhahdid waxaa kusoo baxday falaartaas ayaa soo furi doontaa meeshan friends haddaad dhahdid friendska waxay awood u yeelan doonaan inay wax kusoo post gareeyaan timeline-ka adigu aad leedahay sida tagging-ka only me ayaa la doortaa only me markaan doortay close baan dhihi doonaa only me ayay tahay waxaa hoostooda yaallo qayb kale oo lagu magacaabo review posts that friends tag you in before they appear on your timeline oo ah review in la sameeyo faafreebid inaad ku sameydid postiska saaxiibada ay kusoo taagareeyaan ka hor intaysan kasoo muuqanin timeline-kaaga notification-kan waxaa lagu soo bandhigi doonaa hebel wuxuu kusoo taagareeyay qoraalkaas review timeline-kaaga tag ee review ku samey review-gan wuxuu awood kuu siin doonaa inaad timeline-kaaga markaad timaadid insha Allahu tacaala timeline-ka waan tegi doonaa timeline-kaada markaad tagtid inaad qoraalkii lagugu soo taagareeyay haddii uu yahay qoraal fiican inaad dhahdid add to timeline haddii uu qoraalkaada wuxuu yahay inaad dhahdid hide oo iga qari edit baan tegi doonaa edit markaad tagtid waxaa kusoo baxday qaanadan markuu soo baxdo wuxuu ku siin doonaa laba option oo ah enabled iyo disabled just anagu waxaan ka dooran doonaa enabled aniga hore ayaan ugu dhigay laakiin adiga default ahaan disabled ayay ku ahaan doontaa aniga hore ayaan usoo bedelay enabled meeshan disabled waxaad ka dhigi doontaa enabled just enabled waxay u dhigantaa on disabled waxay u dhigantaa off review qofku ha sameeyo on review qofku ha sameeyo off haddii la dhaho review ma sameyn kartid si automatic waxay timeline-kaada u geli doontaa waxyaabihii lagu soo taagareeyay meeshan waxaa noo muuqdo hal sawir oo ka turjumaya qaabka uu soo muuqan doono markii wax lagu soo taagareeyo waxaad aadi doontaa timeline-kaaga
timelinekaaga markaad tagtid sawirkii lagu soo taagreeyay sidaan ayuu usoo muuqan doonaa macnaha timeline reviewga sidaan ayuu ahaan doonaa waxaan qoraalkan tusaale qoraalkan ama sawirkan haddii uu fiican yahay add to timeline dheh haddii qoraalkan uu xun yahana hide timelinekii ka qari dheh saas waa reviewga oo lagu sheega waxa waaye haddii qoraalkan uu fiican yahay ama sawirkan sawir fiican uu yahay add to timelinekii ku dar friendskeygana ha arkaan macnaha haddii qoraalkan uu xun yahay ee qoraal anshaxumo ah uu yahayna hide timelinekii ka qari macnaha asxaabteyda friendskeyga aysan arkin marka enable markaad dooratid waxaad dhihi doontaa close just registerkii ugu wanaagsanaa waad sameyday registerkii ugu badnaa waad samaysay marka intaas samaysid newsfeed home markaad timaadid timelineka iyo taaginka qaabka meesha ay kusoo muuqan doono ayaan tegi doona waxaan kasii dooran doonaa your postiyaalka adigo aad soo dhigtid postiyaalka markaad adigo aad soo dhigtid waxaan kasii dooran doonaa timeline review oo ah faafreebidii timelineka just aniga timeline review ima yaalaan kahor ayaan iska hadgeeyey adiga marka meeshan waxa kasoo muuqan doono timeline review qoraalkii markaa timeline review aad tagtid meeshan waxa kaga soo bixi doonto waxyaabaha lagugu soo taagreeyay adiga marka wuxuu kuu soo bandhigi doonaa laba option waxaan haddii fiican yihiin add to timeline dheh haddii waxaan ay xun yihiinna hide iga dheh marka intaadan timelineka aadan imaanin waxa markii lagugu soo taagreeyo si automatic waxay u imaan doonaan notificationska oo ah calaamadaas andawoldi ah notificationka markaad furtid qaab wuu soo dhawaaqi doonaa notificationka waxaa kaga soo muuqan doona hebel ama heblaaye hebel waxay kugu soo taagreysay qoraalkaas fadlan review timelinekaaga aad reviewgan ku samey automatic markaad qoraalkii aad dooratid asida click si automatic ah isaga ayaa wuxuu kuu geyn doonaa timeline review markuu ku keenana wuxuu ku siin doonaa 2 options ama 2 choice oo ah waxaan haddii fiican yihiin add to timeline dheh timelinekii ku dar friendskeygan ha arkaan haddii waxaan wax xun ay yihiinna hide dheh ka qari friendskeyga timelinekeygana ka baxo insha allahu tacaala cashirkeenii intaas ayaan kusoo koobi doonaa cashirkeenii ku saabsanaa timeline and tagging oo ahaa sidee isaga joojin kartaa waxyaabaha la igu soo taagreeyay sida video anshaxumo ah sawiro ama qoraallo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu